بسم الله الرحمن الرحيم داوديال kusoo dhawaada Daaha Inspires oo idin soo gudbisa usbuuc kasta clip aad u kooban oo mowduuc markaas maxaan ku yiraahdaa aan isleenahay inuu bulshada iyo dhalinyarteena wax badan kordhin doono aan u soo koobino ama u soo gudbinayno maanta barnaamijkeena wuxuu ku saabsan yahay summary-ga ama khulaas aad u kooban oo ku aadan buugan la yiraahdo Mindset the New Psychology of Success ama aqliyada cilmi nafsiga cusub ee guusha buuga wuxuu isbarbar dhigayaa laba aqliyadood oo maxaan ku yiraahdaa bulshooyinka ama qof kasta yani si uu u xambaarsan yahay qofka markuu soo barbaarayo qofkaas wuxuu ku soo barbaaray beeye gaar ah deegaan gaar ah waalidiin gaar ah guri gaar ayuu ku soo barbaaray yani intaas uu soo barbaarayo wuxuu la soo kulmayaa afkaar kala duwan wuxuu la soo kulmayaa maxaan ku yiraahdaa qaab tarbiyaan kala duwan yani iskuulka iyo guriga iyo meelaha kale oo maxaan ku yiraahdaa qofka uu ku nool yahay dhamaantooda aad ay u saameynayaan taas oo markale keenayso yani ugu dambeystii keenayso qofka inuu aqliyad gaar ah uu xambaaro iyo aqliyadiisa ay noqoto mid furan oo waxbarasho iyo culum iyo horumar iyo wax badan u furan ama inay noqoto mid maxaan ku yiraahdaa xiran oo isbedel iyo waxyaabo badan ogoleen inay noqoto marka maanta waxaan rabaa inaan maxaan ku yiraahdaa khulaaso aad u kooban oo buugan uu maxaan ku yiraahdaa uu aad u soo koobayo aan idin la wadaago qof kastana aan kula talinayo inuu aqriyo gaar ahaan dadka isla inay xambaarsan yihiin maskax xiran yani waayo Soomaalida aad ugu badan yahay barnaamijkan maskaxda ama tashadudka ama maskaxda xirmato oo kali ah hal shay markuu dhig isu bedesho aad ugu badan yahay tusaale waxa kaaga filan waxaad fiirin kartaa ama daawan kartaa barnaamijyada uu sameeyay ilaaha khayra siiyay ninka la yiraahdo Abwaan Dhiirane ee jaamacadiisa Indades International University oo in badan uu ku soo qaadanayo barnaamijkan dadka ka baxayn halkaas uu ku sheegayo waxaan rabaa marka in maxaan ku yiraahdaa yani aan rabo aan isbarbar dhigno labadan aragti ee midna ay tahay aqliyada furan midna ay tahay aqliyada xiran normally yani iraali hada aqliyada xiran waxay aaminsan tahay in aqliga aan la kordhin kareenin oo maxaan ku yiraahdaa yani isbedel lagu sameyn kareenin oo qofka intuu koraayo culum iyo waxyaabo badan oo yani maxaan ku yiraahdaa aqliyadiisa aan ku bedeli kareenin halka aqliyada furan ay aaminsan tahay in markasta ay fursad u haysato in ay wax iska bedesho oo aqligeedii iyo afkaarteedina ay kordhaan ay aaminsan tahay sidoo kale maxaan ku yiraahdaa aqliyada yani xiran ma ogola isbedelku waxay u aragtaa halis waxay u aragtaa yani wax oo maxaan ku yiraahdaa halis ku ah oo yani nolosheeda halis ku ay u aragtaa halka aqliyada furan ay isbedelka fursad u aragto oo wax badan ka faa'iideysato aqliyada xiran yani waxay jeceshahay markasta inay ismoojiso oo kartideedii awoodeedii wax qabadkeedii ay muujiso oo la arko halka aqliyada furan ay maxaan ku yiraahdaa guusheedii waxeedii ay yani caadi u aragto aanan jeclayn inay ismoojiso yani afkaar kala duwan oo iyada ka duwan u furan oo ay aqbasho yani aqliyada kale oo xiran ma aqbalayso waxa soo dhan yani aqliyada yani oo xiran waxay aaminsan tahay in yani dadaalka aanan maxaan ku yiraahdaa waxay aaminsan tahay waxay rabtaa inay dadaal aan ay guur gaarto ay hadafkeedii gaarto ay wax badan xaqiijiso halka aqliyada furan ay markasta ay jeceshahay inay juhdi badan dheeri ay bixiso guusheedina ay ku xiran tahay wax hadba juhdi inta ay bixiso haddii ay juhdi badan iyo dadaal badan ay bixiso haddana ay hadafkeedii gaari weyso ma eegto kaas waxay eegtaa waxa ay ka baratay qaldaadkii ay ka baratay duruustii ay ka baratay eegtaa halka aqliyada xiran juhdi haday bixiso oo hadafkeedii gaari weyso ay u aragto khasaare yani weyn ku dhacday ay u aragto taasna nijab ay ka dhaxasho sidoo kale waxaa jiro yani xirfado cusub ay maxaan ku yiraahdaa jeceshahay aqliyada furan waxay markasta jeceshahay inay kororsato yani xirfado cusub haday looga tahay haday barnaamij kale farsamo ay tahay haday waxyaabo kale tahay waxay jeceshahay markasta inay xirfad cusub ay barato wax soo kordhiso halka aqliyada xiranna maxaan ku yiraahdaa ay aaminsan tahay maadaama aqligeega ay aaminsan tahay inuu xiran yahay waxay aaminsan tahay in xirfado cusub aysan baran karinin oo maxaan ku yiraahdaa yani ay jeceshahay markasta marka nasiib iyo yani qaab kaleeto ay wax rabto inay ku raadiso horumar badan dhinacaas kama sameynayso yani aqliyada xiran halku dhigeedu waxa way aniga wax kasta aniga waxa sameeyay aniga waxaas qabtay aniga sidaas sameeyay aad u jeceshahay halka aqliyada furan ay jeceshahay yani anaga yani hadii guul ama hadaf ama wax la gaaro waxay jecel yihiin waxaasan qabanay ujeedadaasaan gaarnay taas ay ku faanaan yani ugu dambeystii يعني أخليادة حيران
waxay halis u aragtaa dadka kale oo guuleysta waxay u arkaan halis bay u arkaan yani waxay noqonaysaa threatness ay u aragtaa waxay ka cabsato ama yani guusheedii arqalad ku habay u aragtaa halka akhliyada furanna guushi dadka kale ay u tahay dhiirigelin meel ay dhiirigelin ka qaadato waxyaabo badan ay ka kororsato yani hadafkeeda iyo hakudhigeeda wuxuu ahaa anaga marka guushi dadka kale uma aragto halis waxay u aragtaa yani fursad bay u aragtaa يعني هدي أنا وجود بويس بربردقة لبداس أخليات هالكاس وجود يعني لبداس أخليات دتك وتا يعني سدي نولش أساميان يعني نولش يعني عادي أحمالين لها سدي أساميان قفك هدي أخليات حرن وآمن سنيه ومحن كده نولش يسمعين لها لقبل لا بجرجة بويس كيسا لمعامل كعرور تيسا لمعامل كبلشيسا وحن بن ويساميسا halka akhliyada furan sidoo kale ay saameyn wanaagsan ku yeelato environment ama deegaanka oo markaas uu ku nool yahay kaliya marxaladda shakhsiga kuma eko siyaabo kala duwan bay inoo saameysaa tusaale ahaan waxaa laga yaabaa in maskax xiran ay hogaamiye u tahay ama bulsho hogaaminayso halkaasna bulshadaas ay akhliyada xiran ay hogaaminayso ay dhibaatooyin badan kala kulmayso tusaale ahaan fircoon dadkiisa wuxuu ku dhahay ma uriikum illaa ma ara yani waxa kaliya aan aaminsanahay oo aan arkayo baa idin arkaya waxaan idin wadayaa wanaag iyo khayr baan idin geynayaa halka yani maxaan ku yiraahdaa yani malikata balqiisan ay ku dhahday yani aftuni fi amri arrinkayga ila eega yani ma kuntu qaadiyatan amran hatta tashadun keligay go'aan ma gaarayo ila eega waayo waxay aaminsaneed iyada yani aragti furan oo waxyaabo cusub inay soo kordhi karaan ay aaminsan tahay in ay meesha dam ay ku lahayd maxaan ku yiraahdaa innal muluka idha dakhalu qaryatan afsaduha waj'alu 'izzata ahliha adilla marka يعني أخليات حيران iyo أخليات furan hadii hogaamiye ku noqdaan labadaas maxaan ku yiraahdaa sida saameyntaas bay ay bulshadu ku yeeshaan يعني أخليات حيران markasta waxay abuurtaa koox ama shacab waxay abuurtaa oo sidoo kale akhliyaddeeda xiran yihiin oo waxay noqonayaan laba nooc aaminsan in qofkan maxaan ku yiraahdaa ilaaha oo kale in la caabudo ay tahay wax kasta uu sameeyo uu arko wax guul ah uu arko iyo sidoo kale nooc dad ah oo leh afkaar leh wixii aaminsan horumar aaminsan balse dana gaar ah maadi ah wato waxyaabo kale wato ama cabsanayo oo qofka hogaamiyaha aan runtu sheegaynin marka labadaas kooxba bulshadu waxay ku noqonayaan caqabad ay ku noqonayaan yani qaabkaas dhana maxaan ku yiraahdaa bulshada iyo saameyn ugu yeelan kartaa yani labadaas akhliyadood u saameyn kartaa bulshada sidoo kale loo bedeli karaa akhliyadan xiran iyo akhliyadan maxaan ku yiraahdaa yani furan saameynteeda iyo isbarbardhiggeeda waa soo aragnay qaabab waxaa jiro marka qofka yani xambaarsan akhliyada xiran uu isu bedeli karo normally si caadi ah qof kasta yani qeyb buu ka xambaarsan yahay labadan yani aqliyadood waxaa laga yaabaa qof inay u badan tahay akhliyada yani furan oo horumar iyo isbedel iyo u furan iyo qof kalena ay ku badan tahay akhliyada xiran sidaas ay saameyn isugu yeelato balse waxaa jiro qaab akhliyada xiran loogu bedeli karo yani akhliyad furan loogu bedeli karo tusaale ahaan qofka waxaa muhiim ah inuu ogaado meelaha uu maxaan ku yiraahdaa akhliyadiisa ay ka xiran tahay ma mawaadiicda diiniga ah wuxuu ka yahay yani qof xiran oo isbedel iyo afkaar cusub iyo culum iyo wax cusub inuu barto aan ogoleyn ma wuxuu qof xiran ka yahay maxaan ku yiraahdaa dhinaca hogaaminta oo hadii hogaamin ay tagto wuxuu jecel yahay keligiis talisnimo inuu qaraaraadka ama go'aamada keligiis u qaato ama maxaan ku yiraahdaa dhinaca aqoonta markasta ma wuxuu aaminsan yahay in يعني wax cusub la baran karin markasta waxaa muhiim ah qofka halkee yani aqliyadaadu ay ka xiran tahay oo dhibaatadaas ka haysata kadib markaad ogaato waxa aad u muhiim ah qofka inuu jecelaysto ama isku dayo inuu waajiho caqabadaha markasta aad caqabadaha jeceshahay waa markasta aqliyadaadi ay isu furayso ayna ogolaanayso inay maxaan ku yiraahdaa culum cusub iyo waxyaabo cusub ay qaadato markasta aqliyadaada xiran tahayna taas ay opposite ku tahay waxyaabaha kale maxaan ku yiraahdaa akhliyada xiran ay maxaan ku yiraahdaa la isku bedeli karo yani akhliyad furan loogu bedeli karo waxa kamid ah qofka inuu aamino in shaqo adeeg iyo juhdi iyo dadaal uu bixiyay kaliya uu meel ku gaari karo aysan meel ku gaari karinin qaab kale ama qabiil ama maxaan ku yiraahdaa rishwa ama qaab kale inaysan aaminin balse uu aamino juhdi kasta uu bixiyay inuu miro dhal iyo natiijo keenayo haddii hadafkiisi uu gaari waayna isagoo juhdi bixiyayna ay tahay meeshas waxyaabuhu ka bartay inuu maxaan ku yiraahdaa uu ka barto iyo sidoo kale inuu akhriyo yani macluumaad cusub cilmi cusub waxyaabo cusub uu barto markasta aqoontaada ay badato waxay kordhinaysaa yani waxay kordhinaysaa akhliyadaada inay furanto watii cilmigu lahaa yani min al-lahdi ila al-lahdi yani qofka ilaa uu dhiribta ilaa uu yani qabriga ka galo bay cilmiga maxaan ku yiraahdaa uu soconaya yani ay tahay in qofku uu barto wax badan uu kororsado
daawade haddii aad jeceshahay yani in afkaartaadii iyo aqliyadaadii aad rabto inaad ka bedesho aqliyad xiran aadna u bedesho aqliyad furan waxaan kugala talinaynaa sidoo kale book la yidhaahdo muhiim ma ahan ilaa xadka aad wanaagsan tahay ee waxaa muhiim ah ilaa xadka aad rabto inaad wanaaga gaarto oo uu qoraa la yidhaahdo Paul Erdin sidoo kale mawduucan ayuu idinka saacidaya waxaan rajaynaynaa qof kasta inuu barnaamijka waxa ka kororsan doono buugana maxaan ku yiraahdaa uu akhrin doono buug wuxuu xambaarsan yahay yani cilmi baarisyo badan oo la sameeyay wuxuu xambaarsan yahay case studies oo dad ku dhacay wuxuu xambaarsan yahay qaababka hogaamiyaasha bulshadoodii maxaan ku yiraahdaa ay u saameeyaan wax u bedeli karaan wuxuu xambaarsan yahay qaabka macallimiinta iyo waalidiinta ay bulshadoodii ay caruurtoodii ay ugu beeri karaan aqliyad furan wuxuu xambaarsan yahay dadka tababarayaasha ah maxaan ku yiraahdaa tababaro dadka ciyaartooyda ah banooniga ama ciyaaraha noocyadooda kala duwan sida loogu beero yani aqliyad furan loogu beero ayuu isbarbardhigaya qofkii danaynaya waxaan u rajaynaynaa inuu akhristo asigoo PDF-na waa heli karaysiin haddii meesha aad joogto aad ka heli karaysiin maktabadaha ka raadso wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu